aadamkuba bilowgiisii hore la soo daawaday barnaamijka xiisaha badan ee tartanka hal-abuurka tiknoolajiyadda ee sanadka 2021 baaqin waa barashada dadweynaha baaqin waa waana barnaamijka xiisaha badan ee iska kaashadeen bangiga caalamiga ah Premier Bank iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland waa barnaamij xiiso badan oo ay ku tartami doonaan dhalinyar iyo aqoon-yahan tiro badan oo ku kala guuleysan doona $18,000 lacag gaadhaysa oo loogu talagalay in dhalinyartaasi la siiyo hal-abuurka la yimaada boqolkiiba boqol bugayo qalin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو وناسن داودي كسر دوادا برنامج كحيسها بدن ترتك على أبورك التكنولوجيا دا سنة كلابد كون يكوبي لباتن برنامج كان برنامج لوجو ترى جلي رجلينته أقوياء كي يدليرت كل دوان جودهم با قبل هذا كل دوان السومال لان الدنا هي إسلامر كاسين برتي أقوان التكنولوجيا دا أي وحى فلونيسا إسلامر كاسين مال جلينا يا wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda iyo bangiga caalamiga ah ee Premier Bank wana barnaamij ay ku tartami doonaan dhalinyar iyo aqoon-yahan tiro badan iyo ku guuleysan doona lacag gaadhaysa $18,000 oo lacagta Mareykanka ah waxaan jeclahay inaan idinku soo dhaweeyo qayb kamid ah barnaamijkaasi bani aadamkuba bilowgiisii hore wuxuu baahi qabay barashiyo hubkee يو كجبوكتة باقين وا برشة ددوينها باقين وا برشة ددوينها إلا بهيايو لبالارياي إلا بهيايو لبالارياي بلنتين وا بلنتين وا بلنتين وا بلنتين وا boqolkiiba boqol bugayo qalin lagu baratama waxa jecel sida caadano had barnaamijkeena intaan guda galayno waxaan ugu horeyn ugu yeeri doonaa gudoomiyaha guddiga kooxda kala saaridda isla markaasina ha isu dubridaha barnaamijka Professor Mubarak Ibrahim Ar waxa jecel inaad saaxiibkii kula soo dhaweysaan soo dhawow Professor sidoo kale waxaan u yeeri doonaa Dr. Aydruus Maxamed Ibrahim oo kamid ah xubnaha guddiga halkan caawdad ku kala saari doonta soo dhawow Aydruus waxaan isna u yeeri doonaa Engineer Farxaan Aadan Haruun oo kamid ah xubnaha guddiga ee halkan ku kala saari doona dhalinyarta tartamisa Farxaan soo dhawow saaxiibka u tuma waxaan u yeeri doonaa Cabdiraxmaan Ali Herse oo kamid ah xubnaha guddiga halka ku kala saari doonta ardayda ama bulshooyinka tartamaysa ila soo dhaweeya xubinta u dambaysa jecel barnaamijkeena ay qayb ka noqotay isla markaasina guddiga ku soo dhaweeyay waxa weeye Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil Engineer Cabdirashiid soo dhawow aad baad u mahadsantihiin sida dirnada soo dhaweysan xubnaha guddiga haatanna ku soo dhawaada CV-ga guddida kala saaraysa tartamayaashan waa kuma Mubarak Ibrahim Ar Mubarak Ibrahim Ar waa gudoomiyaha guddida kala saarista tartamayaasha waana soo saaraha barnaamijka sidoo kalena waa gudoomiyaha jaamacadda Badr waa kuma Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil waxa uu shahaadada masters ku qaatay software engineering taas oo ka qaatay dalka Ingiriiska Cabdirashiid waxa weeye maamulaha guud ee shirkadda Sahal Technology Solutions oo ah mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Somaliland ee bixiya adeegga tiknoolajiyadda waa kuma Farxaan Aadan Haruun Farxaan Aadan Haruun waxa uu shahaadada masters ku haystaa cilmiga computer science oo uu ka qaatay dalka Ingiriiska waxa uu muddo dheer la soo shaqaynayay shirkadda caalamiga ah ee Dahabshiil oo uu ka soo qabtay xilal kala duwan waxa uu hadda yahay madaxa ugu sarreeya ee tiknoolajiyadda ee shirkadda Dahabshiil Group waa kuma Dr. Aydruus Maxamed Ibrahim Dr. Aydruus Maxamed Ibrahim waxa uu shahaadada PhD ku haystaa culuumta IT-da waana agaasimaha machadka IT-da ee
Cilmi Academy oo ku yaala magaalada Hargeysa. Waa macallin wax ka dhiga jaamacadaha dalka, sidoo kalena waxa uu ku shaqeeyaa la taliye dhinaca IT-da. Waa kuma Cabdiraxmaan Cali Xirsi. Cabdiraxmaan Cali Xirsi waxa uu shahaadada Masters ku qaatay culumta maamulka. Waa aasaasaha iyo mulkiilaha sharikadda Hasi Consulting Firm ka shaqeysa tababarka cilmiga hogaaminta, maamulka iyo samaynta istaraatiijiyadaha. Cabdiraxmaan waa macallin wax ka dhiga jaamacadaha dalka, waxaanu hore uga soo shaqeeyay hay'adda PSI. waxaanu yeedhayaa kooxda West Touch oo jecel halkayna yimaadaan barnaamijka caawa kaga qayb galayaan tartankana ay soo bandhigaan saaxibka tuma West Touch waxaan idin rajeynayaa inaad guuleysataan barnaamijkani waxa uu ka mid yahay barnaamijyada lagu tartamayo halaburka tiknoolajiyada ganacsiga waxaan idinku soo dhaweynayaa muddo 5 daqiiqo in bulshada iyo guddiga halkan hortiina fadhida aad la wadaagtaan barnaamijkiina ujeedooyinka aad ka leedihiin iyo sida uu shaqeynayo waxaan idin kala bixi doonaa idinkii guddida waana idin bilaabay waqtiga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبا دي سلام يا بعد وساردة iyo xubnaha kale ka soo qayb galay barnaamijka waxaan ka socdaa teamka Westech waxaan soo bandhigaynaa barnaamij aan develop garaynay oo lagu magacaabo Patient Record Management System wuxuu ka dhex shaqeynayaa saxada caafimaadka waxa lagu kaydin karaa macluumaadka patientska marka haddaan ku horeyno problemska hadda wadanka ka jira hadda dalku ma lahan wax national patient data record lagu record garayn karo datada dalka tusaale ahaan oo kale inta badan hadda waxay isticmaalaa dhakhaatiirtu waxay isticmaalaan habkii traditionalki oo manual ay warqado buuxiyaan laakiin ma jiro national patient data record ma jiro hadda sidoo kale waxa waqti badan ku lima ama kharash badan kaga luma patientska si loo helo xogtooda ama dhakhtarku xogtooda u buuxiyo waqti badan baa kaga luma patientskana kharash badan baa kaga luma kulba marka datadiisa loo baahdo in la buuxiyo datada la buuxiyo inta badan waxay ku kaydsan tahay dhakhtarada qaarkood iyo klinikada gaar un bay ku kaydsan tahay marka inta badan waxa dhacda in la heli waayo datadaas oo sabab tahay inta badan ayna dhakhaatiirtu ayna kala hadhin wax koobiya datada ay ka buuxiyeen patientskooga markaas ay ku lunto datadii laga buuxiyo patientku marka waxa kale oo jira waqtiga hadda aan ku jirno ma jiro communication digital ah oo dhakhaatiirta ka dhaxeeya haddaba application-kaygu waxa uu qabanayaa wuxuu abuurayaa national patient record buu abuurayaa kaasoo lagu keydiyo macluumaadka caafimaadka ee dalka kaasoo lagu ogaan karo xanuunada ugu soo noqnoqodka badan iyo dadka inta badan sida loogu dhinto xanuunadaas iyo inta gobolada ay u badan yihiin xanuunadaas oo si fudud loo ogaan karo si fudud loo search garan karo waxa kale oo application-kani fududeynaya in ay dhakhaatiirta dalku communication uu ka dhex abuurmo ay datada isku gudbin karaan oo datada share garan karaan wuxuu application-kan abuurayaa in uu patientku datadiisa meel walba u ka helo haddaan dib idinku noqdo information-kayga we are from Boroma marka inta badan patientska marka Boroma lagu baadho oo kale inta qaarkood waxaa loo soo diraa Hargeysa oo kale refer loogu soo sameeyo marka patientka waxay ku qaadataa in waqti kala geliyo iyo kharash badan oo kale uu geliyo si dib datadiisii loo helo marka application-kan waxa uu fududeynaya in patientka datadiisa goobo loo caafimaad laga helo hadda meelahan taageerayna ay ka mid tahay xarumaha dawladda marka xarun kastoo dawladda oo healthy in laga helo patientka datadiisa waxyaalaha kale uu fududeynaya waxaa ka mid ah application-ka qabanaya waxaa ka mid ah in meel walba laga access gareyn karo maadaama uu yahay web based uu yahay oo dhakhtarkuna xilli walba uu access gareyn karo wuxuu yareynayaa errorsku yareynayaa marka inta badan waxaa dhaca dhakhaatiirtu inay go'aano adag gaadhaan maadaama patientka datadiisii oo dhammaystiran oo tafatiran aynan u muuqan waqtiyada qaarkood waxaa dhici karta inuu patientku sheegan karin xanuunka haya oo sidaas uu dhakhtarku ku gaadho go'aan adag isagoo ka duulaya patientka datadiisan isagoonan hayn marka application-kan taasna uu fududeynaya wuxuu dedejinayaa inuu dhakhtarku result ka soo saaro result sax ah inuu ka soo saaro ayuu dedejinayaa patientska wuxuu yareynayaa effortiga iyo time-ka badnaa uu dhakhtarku gelinayay patientka kolba datadiisa inuu ururiyo ugu muhiimsan oo ah wuxuu u save gareynayaa patientska money lacag buu save gareynaya marka inta badan waynu ognahay kharashaadka lagu baadho ama lagu baadho dhiigga patientska oo waxa ugu adag inta badan soo wajaha patientska marka dabcan sidoo kale wuxuu secure gareynayaa datada patientka
haddaba marka uu dalka application ka hirgalo insha Allah markuu dalka ka hirgalo maxaa dhici doona ta ugu muhiimsan oo ugu horeysa waxa weeye research waxa dalka si fudud loogu sameyn karaa research baa loogu sameyn karaa inta badan ardayda jaamacadaha ku jira waxay sameeyaan research bay ku sameeyaan bulshada ku sameeyaan marka ma hayaan meel sax ah oo xog sax ah ay ka heli karaan oo ku saabsan caafimaadka patientska dalka xog sax ah meel ay ka heli karaan ma jirto hadda marka taas uu isagu fudeydinaya waxa applicationka si fudud waxa lagu ogaan karaa xanuunada gobolada ay u badan yihiin xanuunka magacaas oo kale leh gobolka uu badan yahay sida loogu dhinto daada u dhimata يعني genderka u dhinto oo kale si fudud baa loo ogaan karaa markaas dabcan sidoo kale applicationka markuu dalka hirgalo wuxuu abuurayaa job opportunities buu abuuraya taasoo aad looga tabayo dalka job opportunities wuxuu abuurayaa kulley maadaama wixii IT fielka IT-ga yahay waxa loo baahan yahay waxa loo baahanayaa qof data entry oo kale waxyaalaha kale impact saameyn u leeyahay waxa weeye saving lives inuu nolol save gareeyo ta ugu muhiimsan iyadna waxa weeye inuu ka dhaxabo inuu ka caawiyo health professionals ku inay sameeyaan better decision go'aano ka fiican kuwii hore sameyn jireen aad baad u mahadsan tahay waxaad ka gaarsiisay ma waxaad dhamaysatay waqtigaagii aad ka faa'iidaysatay 5 daqiiqo aad haysatay oo qaybtii hore qiimeynta ahayd waxaan u gudbinayaa xubnaha guddiga aragtida barnaamijka ay soo bandhigeen kooxda Westage oo ah wajigii koobaad wad mari doontaan qiimeynta maxaad ku qiimeyseen xubnaha guddiga aan channel ku wareejiyo dhexdan ka bilaabi doonaa engineer Farhan Aadan boqolkiiba 45 عبد الرحمن الحرسي كونتون انجنير عبد الرشيد محمد boqolkiiba 60 ودمين عدروس محمد boqolkiiba 45 boqolkiiba 45 aad baad u mahadsantihiin waxaan rajeynayaa in aad halkaas ay durtaba ka heshaan dhibco aad u qiimo badan waxaad geli doontaan marxaladii labaad ee barnaamijka halabuurka tiknoolajiyadda waxaan idin rajeynayaa idinkii guddiga inaad difaacan doontaan barnaamijkaas soo bandhigteen qiimaha badan kadibna aad ka jawaabi doontaan su'aalaha si furan waxaad tan muddo 15 daqiiqo waqtiga idinku ka faa'iideysanaya waxaan si toos ah idinku wareejinayaa xubnaha guddiga haddii aan bilaabo su'aalaha waxaad noo soo bandhigteen barnaamij cover garaynaya ama ku salaysan baahi rasmi oo jirta waxaynu ognahay qofku markuu dhakhtar u tago dhakhtarkii dhiigag iyo magaranaysa baaritaan uu ku sameeyo haddii dhakhtar kale uu baahdo haddana waxay noqotaa inuu marxaladii uu maray mar labaad maro marka fikirku waa fikir aad iyo aad u fiican faa'iido fara badan soo kordhinaya waxa taa la socota daatada dhakhtarka iyo maxaan raahday xogta uu dhakhtarka uu hayo ee qofka ku saabsan caafimaadkiisu waa xog aad ma garanaysaa oo ah xasaasi waa xog ay tahay inaan cid waliba aanay ogaanin waliba waynu ognahayo xiriirka ka dhaxeeya dhakhtarka iyo qofka ma garanaysaa xanuunsanaya waa xiriir ma garanaysaa aad ma garanaysaa waa xasaasi marka sideed u ilaalinaysaan in daatada qofka xanuunku qabo dhibaatooyinka haysta inaanay si fudud aan loo helin sideed u ilaalin kartaan taa security ahaan iyo maxaan raahday idinkoo ilaalinaya privacy-giiba bismillah aad baa maasan tahay horta qodobkaas waa qodobka ugu muhiimsan maadaama waxaan aan hawshan aan qaban ay tahay wax shay xasaasi ah oo qofka caafimaadkiisa ku saabsan marka inta badan waxaan xoog saaranaa in ay access gareyn karaan daatada patientska dadka authorized dawladdu ay u ogolaatay yani xarumaha dawladda ka hoos shaqeeya marka hadda sida qorshuhu yahay waxa application wuxuu ka dhex shaqeynayaa lixda dhakhtareed dalka u waaweyn marka lixda dhakhtar kulay waan ognahay waa dad dhakhaatiirta ka shaqeeya waxa weeye waa dad professional oo xogta patientskuna ay secure ay ku tahay agtooda marka kulay waxa access gareyn kara dad loogu talagalay in ay patientska daatadooda kulay dhakhtar inuu daatada patientka ogaado waa wax fiican waa shay macquul ah laakiin inuu shicibka kale inay ogaadaan unba shay adag ah marka aad baan taasna anaguna uga taxadirnay marka mar walba waxa iskareyn kara application-kan ama website-kan waxa iskareyn kara only authorized people baa iskareyn kara kaba soo qaad dhakhtar miyuu markuu baarayo xogta qaabkee uu baaraya yani ma si fudud oo tusaale ahaan oo kale telefoonkii qofku ku baaraya ma wuxuu leeyahay number gaar ah oo patient number aad ba maasan tahay mar labaad
kolley website-yadu waxay kala leeyihiin sites kala duwan bay kala leeyihiin marka qaybo gaara waxaa jira userska loogu talagalay iyo qaybo doctorska loogu talagalay marka ku jiro dhakhtarku qaybtii dhakhtarka loogu talagalay patientka wuxuu ku search gareyn karaa by number telephone numberkiisu ku search gareyn karaa marka dhakhtarkaas yahay dhakhtar aan ogon lahayn oo data soo geliyo systemka oo datana ka arko ay dawladuna ogashahay yani developerskuna ay ogol yihiin taasi way khatar bay yara keeni kartaa waayo dadka telefoonadii way wada hayaano waxa laga yaabaa aad garanayso wada oranayso platform kan laga search gareyn karo waxa arki kara dhakhtarka meeshaas maamulaya isagoo dhakhtarku arki kara haddana malaha fikir ahaan waxa fiican in qofka numberkiisa oo kaliya lagu maxaa patient numberkiisa systemka horta kalley systemku wuxuu ku shaqeynayaa ID buu ku shaqeynayaa ID-gana qofka waxaa looga dhigayaa waxa isagu isla garanaya yani maalinka aad u timaado dhakhtarka maxaa ku ID ahaa telephone numberkayga ay ID ahaa waxaas ay ID ahaa qofku markaas saasaa lagu ogaan karaa marka kolley cid aan waxba laga qarin karin waa dhakhtarka weeye dhakhtarkuna maadaama systemka maamulayo kolley inuu patientka datadiisa access gareyn karo weeye cid kalena banalkaa uu dhakhtarku arki karo cid kale ma arki karto yani interfaceka uu dhakhtarku arki karo cid kale ma arki karto maadaama uu debin ku xidhan yahay wixiina secure yahay anigoo daba socda su-aasha cabdirashiid waxaa laga yaabaa dhakhtarka laftiisa inaynu waxyaabaha qaar ka ilaalin karno oo qofku doono aanu iska baadhbaadhi karin number kastuu garanayo qofkaas muxuu xanuuna qabaa aanu iska egeegi karin marka haddaad ku dari lahaydeen maybe biometric fingerprint oo patientku uu leeyahay maybe in lagu dari karaba card oo QR card la scan garaynayo macluumaadku soo baxo runtii way fiican tahay in halka la sii yaradkeeyo qaybta technology-da waxaad ku dhisteen baad tirahdeen PHP waxyaabaha kale raacaya tusaalahan haddaad yar sheegto PHP MySQL way database waa MySQL PHP front end kuna waa PHP xagga security-ga marka laga tago username iyo password wax kale oo sii adkeynaya horta inta badan website-da waan wada isticmaalnaa laakiin website-yadu qaar baa secure ah qaarna secure ma ah marka anagu waxaan rajeynayaa inaan isticmaalno systemka SSL inaan isticmaalno oo aan ku secure garayno application oo systemkaas oo ah inta badan kuwa website-yada ugu xasaasisan lagu secure garayo kaasaynu rajeynaynaa inaan imkana noo diyaar ku darsataan in database-ka laftiisa aad encryption ku samaysaan in case haddii uu gacanta ka baxo si aanu isagoo plain text ama qoraal iska caadiya aan loo arki karin macluumaadkii patientka taa ku dheeduna waad ka fikri kartaan thank you marka haddii aan ku noqdo commentigaagii markii hore horta waxyaalahan aad u xalinna waxa weeye in patientka waqti badan uuna kaga lumin marka uu dhakhtarka u yimaado in daatadiisii dib loo helo marka inta badan waxaa dhacda waqtiyo emergency inay patientku dhakhaatiirta u yimaadaan qofku iyo suxsan oo kale haddii uu dhakhtarka u yimaado cidima oga qofka inuu macaan leeyahay ama inuu dhiikar leeyahay marka dhakhtarku waqtiyadaas oo kale go'aan adag buu gaaraya laakiin waxa kaliya la isla yaqaan waxa weeye qofka lambarkiisa la isla yaqaan marka dhakhtarkii maamulay hospitaalka oo loo yeeri karaa patientka nobad baa la oran karaa daatadiisa marka saas ku ogan karaa qofku inuu allergy leeyahay ama inuu waxa qabo si waxa looga duulo oo waxa looga ilaaliyo marka waxa dhacdo bowra marka dhacdo oo kale oo jirtay inaan dhalinyaro oo macaan leh ayaa aad buu macaankiisu marka aad buu kacay marka waxa dhacdadaas waxay ahayd asxaabtiisa dhakhtarka ula carray marka lama ogeyn in qof patientka macluumaadkiisii marka waxa lagu muday irbado opposite ku ah xanuunkii uu qabay saas marka ku soo noqon waay Allah naxariista marka saas oo kale si looga hortago qofka by clicks baan ugu talagalnay in lagu ogaado xogtiisa laakiin aan ilaalina un qofka ogaanaya xogta in uu qof authorized yahay inuu dhakhtarka noqdo okay su'aashni wadiina waxay noqonaysaa waxa tiran systemkan 6 hospitaal buu ayuu xog saaray soo ma targetka hadda ugu horeeya fiiska koowaad oo kale marka 6 hospitaal patientna kala duwan baa imanaya waxay imanaya qof dumara waxay imanaya ilmo yar baa imanaya waxay imanaya qof waayeela cudurrada kala duwan marka data aad u kala duwan baa meesha imanaysa marka xogta yaa record garaynaya sidee loo control karayaa for example oo kale cudurradu way fabadan karaan oo intaasoo cudurro kala gaara jira xogta noocaas ayaa systemka gelinaya waa su'aal fiican weeye horta xogtu way kala duwan tahay xogna dhakhtarka uun baa gelin kara xogna qof registrar oo kale gelin kara marka dhakhtar waxyaalaha physicalka ama personalka oo kale
qofka registrationka gelinaya oo macluumaadka diiwaan gelinaya dhakhtarkuna wuxuu ku daray waxyaalaha kale uu dhakhtarku uu ku dari karo ayuu ku daraya user walbana wuxuu ku dari karo marka imka tusaale ahaan oo kale haddaan idiin sheego sida application uu shaqeynayo uu imanaya registration ka register gareynaya qofka waa loo gudbinaya dhakhtarku wuxuu ku daraya dhakhtarku haddii uu u baahdo in uu qofkani medical ama test soo maro wuxuu codsiba u dirsanaya isla applicationka gudihiisa qaybta medicalka ayaa message u dhacaya wuxuu u arkayaa codsiyadii uu dhakhtarku soo qortay codsiyadaas soo buuxinaya uu soo celinaya message marka dhakhtarka arkaya dhakhtarku halkaa wuxuu ka gaari karaa go'aan ah inuu x-ray oo kale u diro halkaasoo kale uu x-ray ka dalbanaya qaybta x-ray uu message ku dhacaya marka notification marka uu dhacay iyagna way ka soo jawaabayaan meesha la yiraahdo x-ray nooga soo qaada macluumaadkiisii ayay ku soo biiraysaa uu dhakhtarku arkay dhakhtarku marka halkaa wuxuu ka gaari karaa in uu ku magacaabo disease oo ku magacaabo dawooyin uu qoro marka dawooyinka uu qoraya farmasiga qaybta farmasiga uu diraya farmasigana notification baa u dhacaya dawooyinkaas oo dhan dawooyinka waan siiyay xabadaas oo kale way dhiman tahay kharashka inta lagna waan ka qaaday kii medicalkuna kharashka uu qoraya kii x-rayguna kharashkiisa uu qoraya marka mid walba datadiisii waxay ku biiraysaa datada guud ee patientka marka halkaas uu dhakhtarkuna ka go'aamin karaa disease-ka uu qofka ku diiwaan gelinayo hadhowna by disease baa lagu search gareyn karaa by gender by name by phone number intaaba uu ku search gareyn karaa laakiin ugu muhiimsan oo ah cid xogta arki karta waxaydaan ugu talagalay haddaan doonayo inaan dhakhtar ahaan oo kale inaan soo access gareeyo xageen ka helayaa informationkiisa oo kale haddii aad doonayso inaan soo access gareeyo systemka laftiisa adigoo ah anoo dhakhtarkii oo kale oo dee way fududahay waxa kaliya systemka aad ku shaqaynayso waxa weeye waa linkii oo kale waad kusoo gali kartaa dee username iyo password kale waa lagu siinaya marka maalinka systemka lagu rakibayo saas baad dad ku gali kartaa marka waxa kaloo jira online appointment u jira si looga hortago xanuunada inta badan patient waxa jira iyagoo dhakhtarka u yimid in tusaale ahaan oo kale madax xanuun oo kale yahay marka safka marka ay galaan dhakhtarka oo kale waxa dhici kara in patientnadan ka horeeyo oo kale xanuuna gaar ah inay qabaan xanuuna waxa jira dhakhtarka lagu kala qaado marka waxa dhici karta intuu safkan sugayo patientku in xanuunkan patientkan ku xigay uu ka qaadi karo marka si taana looga hortago applicationka waxa kaloo dheer u leeyahay online appointment inuu sameeyo marka qofku online uu ku soo dalbado markuu waqtigiisu gaadho la yiraahdo sida iminka sahal bas oo kale markaad baxayso waqtigaagu gaadhay soo dhawow oo intaas time baa ku hadhay saa uu ku soo galo waxyaalaha kale aanan process ku sheegin waxa weeye patientka datadiisa waxaa la kaydinayaa min birth to death birth certificate ayaa laga soo bilaabaya oo applicationka siinaya patientka ilaa to death certificate xataa uu siinaya patientka okay westec iyo softwarekiinaba patient data management system waan idin bogaadinayaa guul baan idin rajeynayaa kolley waxaan kusii dhiirigelinayaa inaad sii wadaan ilaahay idamkii waa barnaamij runtii aad u qiimo badan oo loo baahan yahay laakiin waxaad tidhaahdeen 6 cusbitaalo keliya ayaad yani 6 cusbitaalo waaweyn first fees tusaale ahaan oo kale Hargeysa oo keliya waxay leedahay cusbitaalo kii waxaa jira TB-da waxaa jira kii Hargeysa Group Hospital cusbitaalo kale waxaa jira in caruurta oo dawladdu leedahay kuwa waxaa jira private oo runtii aad u xoog badan oo ciidan ka fara badan patientkuna meel walba uu joogaa marka maxaa targetkiina u koobteen oo aad uga dhigteen meel aad u yar idinkoo haya program runtii life saving ah oo laga yaabo inuu sida imka inanka aad sheegtay macaanka qabay ee aan la ogeyn inuu macaan qabay dawooyinka la siiyay maalmo way dhacdaa qof gastri iyo muxuu ahaa xanuuno leh maaragtay oo ama dhiikar leh oo dawooyinkii dhiikarka ka soo horjeeday lagu mudo ama qof macaan leh oo kuwa kale lagu mudo waayo qofkani urku baala maaha systemkani wuxuu keenayaa in qofkii fahmo marka maxaad u balaarin weydeen ee uga dhig weydeen wax horta halkan hadalkayga kumaanu sheegin in uu halkaa ku koobnaanayo halkaa ku joogayo laakiin first facekayga ayaa sidaa ah mananu lihin mar keliyaan u wada shaqaynaa dee Somaliland dalkoo dhan ma wada shaqayno mar keliya laakiin waxaanu doonaynaa step wax walba step ayuu dalka ku gaadhaa kolley oodana siday u kala sareysaa loo kala guraa siday u kala fududahay marka hawsha ayaan u kala qabanna marka hadda meeshaan target gareynna waxa weeye market milaankayguna waxa weeye waa B2B inaan target gareyno wasaaradda caafimaadka si ay ugu hirgeliso goobaha iyagu maamulaan dawladda ka shaqeeya si markaas dalka uu ku sii gaadho marka hadhow waxaan anagu targetka u yahay in aan patientiska tusno inay halka noloshoodu ku jirto
si ay hadhow u fadilaan dhakhtarada ku shaqaynaya systemkan ee daatadooda u kaydinaya. okay ma hadiyad aad wasaaradda u sidaan baa mise waa meherada rabtaan inaad idinku maamushaan wasaaradduna ay maaragtay idinla maamusho oo aad rabtaan inaad cusbitaalada ama public ha noqdeen ama private aad fee ka qaadaan oo dabeetana aad dee halkaa ku shaqaysataan ها وسيداس وي ساده ما شيكتي وي وسيستم aan doon anaga iyo wasaaraddu inaan iska kaashano si ay ugu hirgeliso dhakhtarada ka hoos shaqeeya dhakhtarada dawliga si ay ugu hirgeliso marka uu si fidana aan subscription fee aan ka qaadno dhakhaatiirta kale ka madax banaan waxaad siinaysaan sanadka koowaad mise client baad rajeynaysaa inaad heshaan isla markaa patient kan tusaale ahaan soo gelaya ee appointmentada sameynaya iyaga laftooda miyaad ugu tala gasheen fiina ka qaadaan waayo iyada lafteedu waa chance kale oo aad publica ugu baxdaan dadka caadiga ah ee maaragtay adeega caafimaad raba marka wax intee leeg dakhli intee leeg baad filaysaan sanadka hore waa su'aal fiican weeye horta marka hore waxaan target gareynaynaa ma doonno inaan ka qaadno patientiska kharash anagu aan ka qaadno ma doonno si dhakhtarku sidiisii hore u shaqeynaya wuxuu isagu feed kordhinaya isagaa kordhinaya laakiin anaga iyo wasaaraddu waxaan ku daddegelinay in application-kan ay ku shaqeeyaan dhakhtarada dalku marka waxa subscription fee aanu charge garaynayno ma jiro subscription fee waa feature ka mid ah website-kayaga mana feature keliyana ma anagu ma fee kama qaadano su-aasha ugu dambaysa waqtiguna uu idinka dhow yahay waxaa jira dhakhaatiir badan oo systemya leh laakiin waxay diiwaan geliyaan oo keliya macluumaadka kooban ee patientka sida magaciisa xaafadiisa telefoonkiisa ma diiwaan geliyaan waxa qofkan laga helay iyo dawooyinka loo qoray maxaad u malaynaysaa sababta maxay u samayn waayeen ma weydiisaan haddii aad marteen cusbitaalada qaar sababta aanay patientka medical historygiisa aanay u diiwaan gelin horta aad baa u mahadsan tahay annagu ma nihin arday ka soo baxday caafimaad kolley xogtanna waxaanu ka helnay waqti badan oo questionnaire badan aan sameynay iyo macluumaad badan oo soo ururinay ayaan ka helnay maadaama anagu fiilkaa ku jirin xogta aanu helnay marka waxyaalahan xataa imika la buubuuxinayo oo application-ka ku jira waa waxyaalaha ay ku shaqeeyaan dhakhtaradu yani formskii ay ku shaqeynayaan warqadihii oo digital un weeye isla kii un weeye marka aad baad umahadsantay aad baan idin bogaadinaya kooxda West Stage waxaad halka ku difaacateen wajigii labaad ama qiimeyntii labaad ee barnaamijka aad soo bandhigteen dhinaca caafimaadka ka hadlaya waxaan ku guda jirnaa daawada barnaamijka xisaab badnaa ee tartanka halabuurka tiknoolajiyadda ee sanadka 2021 waan u mahadnaqayaa xubnaha guddiga waqtigooda qaaliga ee inoo soo huray iyo bulshada barnaamijka goobjoogka iyo inta warbaahinta ka daawanaysaba waxaan geli doonaa qiimeyntii labaad ee kooxda West Stage dhibco hore haysteen oo ahaa bandhigoodii koowaad kadib markii ay difaaceen barnaamijkooda maxaad ku qiimeyseen waxaan ugu horeysiin doonaa xubnaha guddiga oo injineer cabdirashiid maxamed markii aan dhageystay say su'aalaha uga jawaabeen waxaa ii muuqata barnaamijku inuu barnaamij aada u ballaadhan yahay waxaan isweydiinayaa in maadaama oo xogta patientku ay aada u fiiqsan tahay sida cabdiraxmaan uu sheegay dhakhtaro badanna ay taallo in ay malaha ka fududayd in systemku uu noqdo mid integration waxaan dhahdaa ay ugu soo gudbin karaan xogtii iyadoo patient waliba uu number u gaara uu yeelan daro unique patient number markaan qiimeeyey barnaamijkoodii su-aalihii maxaan dhahdaa aynu weydiinay ay ka jawaabeen waxaan ku adkaystay 60kii marka hore 60kii hore waa tahay Dr. Aydruus maxaad iska bedelay leeyahay barnaamijka qiimeyntii hore aad bixisay horta teamka Westtech way mahadsan yihiin waxay soo bandhigeen barnaamij aad ballaaran markaan dhageystay su'aalahaas ay ugu jawaabayaan iyo xogta dheeraadka ay siiyeen gradekeygii hore waxaan ugu daray 5 marka waxay noqonaysaa 50% waa tahay cabdiraxmaan cali xirse anigoo aad rajeynaya inay barnaamijka aad uga sii shaqeyn doonaan oo sii ballaarin doonaan waayo waa barnaamij aad u qiimo badan welibana kula talinaya qayb researchka maaragtay caawinaya oo epidemiology-ga iyo xanuunada faraha badan iyo gobollada siday uga kala jiraan iyo xogo noocaas oo kale oo ay dowladda iyo hay'adaha caalamiga ah iyo private sector-ku u baahan karaan runtii aan isleeyahay wuu keeni karayaa waxaan runtii ugu daray 5 marka 50 bay marka hore ahayd 5 iyo 50 baan uga dhigay waa tahay
وحبنتها ودنا بشيء جودية إن قيمتي وجه الله بعد كهذا وستة إنجنير فرحان هذا boqolkiiba markii hore boqolkiiba 45 bay ahayd 5 baan ugu daray boqolkiiba 50 aad baad mahadsantihiin waxaan jeclahay shacabkeena aad u tuntaan isla markaas ay soo dhaweysaan daawadayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynaynaa qayb ka mid ah barnaamijkeena tartanka halabuurka tiknoolajiyada ee sanadka 2021 waxaanan ku kulmi doonaa qayb kale oo xiiso badan balse ka hor waxaan idinku dhaafi doonaa barnaamij kale oo kan lamida ka hor intaan ku kulmayno waa bahda kala duwan ee barnaamijka daadihinaysa howlwadnada dhinaca surqaadii isku dubaridka iyo howlwadnadii iyo guud ahaanba mas-uuliyiintii kala duwanaa barnaamijka qayb qaatay ilaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bani aadamkuba bilowgiisii hore wuxuu baahi qabay barashiyo hubkee yuu kaga bogtee باقٍ برشدا ددوينها باقٍ برشدا ددوينها إلا بهيايو لبالارياي إلا بهيايو لبالارياي